السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دمانتينا ماكستو أجوكتان واتسلامنتين وحندكو سلام يا وحيتهي سلامتا إسلامك وحندين لا هي هبين ونكسن إلهي سبحانه وتعالى ماكستو أجوكتان هيدن كنا وديالو إلهي سبحانه وتعالى عافيمات كيسا ينمعاديسا هيدن زياديو آمين. والله ليال ما أنت وحنجي على هينا الشيء لو فائدو آد مهم لغيا وإن نولشينا وحكبديشو لغيا وحيالا بدن إنان كفايديسانو intaan labadaas faa'iido aan sheegin waxaan jeclaan lahaa dhammaan walaalaha hadda soo galaya qadka dhammaantiin calaykum assalaam wa barakaatuh in asxaabtiina kale aad la wadaagtaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantiina nagu anfaco ajarka iyo xasanaadka dhegeysiga khayrkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyo. walaalayaal, xadiis ayaan sheegi doonaa oo hadda dhow aan akhrinayay laga yaabaa adiinaad maqashay anigan in badan aan akhriyay laakiin maanta markaan akhriyay si kale iyo qaab kale wadcigeena maanta aan ku sugannahay i dareensiisay. waxay tahay walaalayaal xadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay laa tasubbu ddiik fa innahu yuuqidu lilsalaah. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskaasi culimmadu waxay sheegaan in qaabo badan ay ku soo aroortay iyo meelo badan, laakiin macnaha aan fasirno isaan u fahanno ujeedada iyo fahamkaan ka fahmayno. nabigu sal slam wuxuu leeyahay ha caynina diiqa. subxaan allah, bal fiiriya, nabiga wuxuu inaga reebayaa waxay tahay in aan cayno xayawaan aan fahmayn xitaa luqadeena iyo waxaan anaga isku wadaagsanayno. subxaan allah, nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ha caynina diika. sababtu maxay tahay? fa innahu yuuqidu lilsalah. wuxuu idinka kiciyaa ama fa innahu yadcu riwaayo kaleba ay tahay lilsalah, salaada buu idinku dhawaaqaaye ha caynina. subxaan allah, xadiiskan wallahi waxay u baahanta dhegahayna inaan u furno. waxa hadlayo waa nabigeena sala allahu calayhi wasalam, dhammaantayna ina tarbiyeynaya, ina fahamsiinaya hadalka wanaagsan, waxa wanaagsan oo kow ay ka tahay nabigu uu le laa tasubbu ddiika waddiiqa ha caynina. xayawaan baa la leeyahay ha caynin ku luqad fahmaynin, ku affahmaynin, yani isku jinsi aadan ahaynin buu ilaahay nabiga wuxuu leeyahay ha caynina. ka waran insaan muxtarim oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaaraam ka dhigay in la caayo, bal cadaab ku ratibay qofkii caayo, bal yani islaamka waxyaalo badan uu sheegaybo ilaa heer uu gaarsiiyey yani in qofka cadaabta waxa ugu badan ku gelaya carabkiisay ka mid tahay cayitaanka iyo namiimada sababta u naqanayso. nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam diiqa ha cayna, sababtu waxay tahay wuxuu idinka kiciyaa waa salaada. yacni xilliga waad aragteen diiqa uu dhawaaqayo, uu qeylinayo salaada subax khaasatan. yani subxaan allah, dhegeysta, nabi cilad ayuu sheegay, sababtoo wuxuu idinka kiciyaa sharaf oo looga yeelay inaan wax lagu tuhmin ama diiqa xayawaan aan la caynin. sababtu waxay tilmaantaa waxay tahay in aan la caynin maadaama uu salaada inaga kiciyo. maxaan ka fahmaynaa walaalayaal? culimmadu waxay dhahaan waxay daliil u tahay qof kastoo kheer agtiisa laga filayo in la caayo ama xumaan laga geysto ama xaqiisa la karaam yeelo ama yani la ihaanaysto, la yeereysto ama lagu tuumo, yani
wanaagiisa khayrkiisa la ogsoon yahay booska ummadda ka taagan yahay mar un waxay qaladaad ka dhacday insaankan macsuum uusan ahaynin yani lagu tuhmayo xumaan la caaynayo loo maleeya wax iska baashaala diiqa baa la leeyahay caayina salaada buu idinka kiciyaa ka warama bal qof caalim ah culumo ah u taagan diinta islaamka u taagan khayr iyo wanaaga dhaxlay wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan ugu jecel yahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah u taagan waddada allah subxaanahu wa tacaala sida ummadda ugu hogaamiyo ka waran qofkaasi sooma mudna in la ixtiraamo sooma mudna in la wanaajiyo sooma mudna in yani aan anaga yani wanaag iyo khayr aan tusno laakiin maalmahani walaalayaal waxaan meelo qaarkood aan ka arkaa waxay tahay dad ihaanaysanayo haddii qofkan aad xumaanta ku tuhmaysid aad xitaa qofka isqaabilika ama adi aadan dhegaysanin ceeb ma ahan laakiin qofkan diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xambaarsan yahay ku sharaf ku ixtiraam aan ku celiyo qofkan haddii aad adiga asleedahay qofkan ma dhegaysan kara aniga ama ima quman ama isma fahmayn ama siduu wax u jeedinaya ma fahmayo waan dareemi karaa waa dhihi kartaa dhib ma lahan laakiin inaad caysid ama ceebihiisa aad raadisid ama xumaan aad ku tuhuntid ama yani waxyaalo kale aan loo baahan aad yani hadalkiisa uun khalad ah ka dhex fiirisid waa cayb walaalayaal qofkan ceebeyna waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa xambaarsan ummadda u taagan inay iftiin iyo nuur mar kasto ku hoggaansamaan bacda allahi ilaahay subxaanahu wa tacaala iftiinkiisu adduunka waa culummada mar kastoo aan culummada ixtiraamayna walaalayaal waxay ka dhigan tahay waxaan ixtiraamaynaa kitaabkeena qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam mar kastoo culummada iyo dadka ahlu cilmiga ah aan si kale ama qaabka u dhaqmayna waxay tusaysaa waxay tahay wax kale iyo waxaan ficnayn lidaalika walaalayaal nafsadeyda aan ka bilaabaya idinkan aydin leeyahay waxay tahay culummadaan ixtiraamno aan sharafno hadalkooda aan wanaajino xumaan iyo macsuum maahan culummada macsuum ma ahan haddii qalad ama xumaan ku aragtidne aad yani had awoodid inaad tustid ama aa u sheegtid way ficnaan lahayd haddii kalena aad ka aamustid inaad ummadda ku dhex faafisid iyo waxyaalo kale qof aa la dagaalsan tahay oo kale qofkan islaam iyo wanaag iyo khayr buu ka sheekeynaya ma dagaal baa kala dhexayn kara waa may qof leh ashhadu an laa ilaaha ila allah hadalkiisaba ku bilaabayo ina alxamda lilah ka warama walaalayaal hadalkiisaasuu ku bilaabaabo ila quraan muxuu ku bilaa alxamdu lilah hadalkiisa ninkan wuxuu ku bilaabayaa waxay tahay inuu ilaahay amaano mahma xitaa qalad aa ku aragtid inuu diintaba ka gelayo xitaa waa in si kale iyo weji kale ula dhaqantaa dadka ahlucilmiga aad u bandhigtaa inay arrimahaas ka hadlaan ma ahan qof kasto caamo kasto nasiixadeeda maanta insha allahu tacaala walaalayaal ilaahi subxaanahu wa tacaala meel kastoo aad joogtaan ha idin xifdiyo asxaabtiina walaalihiina dhalinyarada iyo wixii lamid ah xilligan waa xilli dambe kolay laakiin insha allahu tacaala sii sheegaraya insha allahu tacaala walaalihiina laga yaabaa inay jijifteen waa xilli dambo anagan insha allahu tacaala ilahay waxaan ka codsanayaa waxay tahay walaalayaal inuu hurdo wanaagsan caafimaad leh iyo qalbi aan salaada subax kusoo kacno qofkii awoodane inuusa qiyaamu leyl uu ilaah subxaanahu wa tacaala waafajiyen noo soo duceeya aan isku soo ducin ilaah subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanayaa waxay tahay biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati alculaa inta hadda daawanaysa iyo inta gaari doontaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasto muraad leh inuu ilaah subxana wa taala muraadkiisa uu sahlo in qof kasto anaga naga mid ah muraad leh ilaahi subxaanahu wa tacaala muraadkiisa uu u sahlo qof kasto anaga naga mid ah xanuunsan ama deyn lagu leeyahay ama si kale ah ama murug heeso inuu ilaah subxana wa taala murugta ka qaado ilaahayna inuu qadaro birito inuu soo koco asigoo faraxsan noloshiisa uu ka bilaabo go'aan adag iyo hor u socod iyo guul biidni illahi subxaana wa tacaala waxaan idin rajaynayaa waxay tahay haween mid aad ku raaxaystaan hurdakan u wanaagsan aad heshaan salaada subaxna aad soo kacdaan
rabbigiina xalla idin jiifiye aad usoo kacdaan dhahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin agtiisa aanisaan alxamdulilah aan dhahno aan ku kacno markaan kacayno yani adkaarta oo hurdada aan ku kacno markaan jiifayno sidoo kale ayatul kursi uu yaraan inaad akhrisid naasam uu leeyahay shaytaanka wixii lamid ahbo qofka ilaah subxaana wuu ka ilaalinaya way ka mid tahay insha allahu tacaala ilaah subxaana watacaala idin xifdi maa kastoo aad joogtaan sii sheergaraya asxaabtiin la wadaaga hada wabillahi tawfiiq waa taladeyda ayloobina asxaabtiina sii gaarsiiya biidni illahi subxaana watacaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi